ninka waajibka ugu horeeya saaran wuxuu yahay markuu waxyaalaha soo kala arko in uu dagaaltamo. wasiirka waxaan ogaanay in uu dhintay aabihii Ilaahay u naxariistay gacan baan u qaadi jiray aabihii intaanu dhiman sidaas baan ku samayn jiray aabihii wasiirku. ma yaqaano wasiir ama mas'uul kale haddii uu khalad galo muhiim uma aha mansabkiisa amba darajadu leeyahay amba qaraabadiisa baa noqdee xataa haddii u dhow yahay muxuu ku sameeyay inankiisa Cuday taasuna cadeen ayay u tahay dhammaan. kani waa Saddam Hussein ee dhintay haddana nool kaasoo qisooyinkiisu ilaa hadda la hadalhayo. 1989 wuxuu ogaaday Saddam Hussein mid ka mid ah wasiiradiisa inuu ahaa mid caasiya oo waalidkii dila kaasoo ugu taxadiyay waalidkii mansabku hayo waxaanu ku gafay xuquuqul waalidiin. markii uu dhintay aabaha wasiirkan dhalay dhammaanba waxa la mooday in si caadi ah uu dhintay laakiin arinku sidaa mu ahayn marnaba. wuxuu ku dhintay wasiirkan aabihii sabab la xiriira gacan qaad ku qaadi jiray aabihii. haddaba markii uu Saddam Hussein tacsi u diray ehelkii uu ka geeriyooday xaaskiisu waxay u soo qortay warqad ay u sheegayso sababta uu dhintay ninkeedu. markii ay u timid warqaddu Saddam Hussein uu akhriyay uu ogaaday wasiirkani inuu gacan saari jiray aabihii weliba si arxan darra aad ayuu uga xanaaqay Saddam Hussein arrinka waxaanu amray in arrinka la soo xaqiijiyo xilkana laga dejiyo. kadibna wasiiradiisii ayuu shariyay waxaanu u sheegay arrinkan siduu u dhacay casharna ay u noqoto kuwan si aanu midna ugu dhicin arrinkan oo kale. kadibna wasiiradiisa Saddam wuxuu maqashiyay codkii laga duubay ee sirta ahaa wasiirkii aabihii dili jiray waxaanu yidhi haddii ogaan lahaayeen reer Ciraaq wasiirkani wuxuu ku dhaqmay reer Ciraaq gacan ayay saari lahayn bilaa shaki.